السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan dhamaantiin waxay dirajeenaya caafimaad qab kulligeen amaba dhamaanteen waxaan wadagsoonahay in caruurta amaba ubadku yahay mid ka mid ah hadiyadaha ugu qaalisan ee uu Rabbi addoomihiisa siiyo hagaag balse muuqaalkeenan maanta waxaanu kaga hadli doonaa qaar ka mid ah dilaayada ugu caansanaa ee caruur ah amaba ciyaal ah iyo falalkii foosha xumaa ee geysteen fadlan intaan u gudagalin muuqaalkeenan maantana subscribe sar kanaalka dadka cusub tahay oo ku soo biir ana wadaag asxaabtaada oo share dheh mahadsanid aynu gudagalno muuqaalkeena maanta I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. dilaageena yar ee ugu horeeyay muuqaalkeenan maanta waxa lagu magacaabaa Jordan Brown waxaanu wadagsoonahay dhamaanteen daawadeen inta badan caruurta yar ee dilka geysatay ay u geystaan falkaas foosha xun caruur kale oo ka yar amaba ka buniyad amaba jidhka qaab dhismeedka jidhkiisu uu ka daciifsan yahay isaga balse wiilkan yar oo ka duwan caruurta kale waxaana dhacday sanadku markuu ahaa 2009 oo da'diisu ahayd 11 sano oo kaliya ayaa waxa uu ku dhuftay xabad gabadh uu aabihi qaba amaba waxa loo yaqaan aayada taas oo lagu magacaabi jiray Kensi markaas oo ay caloosha ku sii gabadhani ilmo yar oo xilligaas sidkiisu ahaa 8 bilood oo kaliya almuhim waxa uu soo kacay Jordan subaxyada kamida waxaana uu la soo baxay mid kamid ah qoryaha shimbiraha lagu ugaarsaday amaba qoryaha ugaarsiga lagu talagalay oo uu aabihi hadiyadahan u siiyay iyo naga cilmi badan gaaladani muxuu cabsanaa talo aabihi markuu siinay ilmaha yar qoriga xabadda ku jirtay intaas kadib waxa uu Jordan la soo dhaxmaray gurigii lana yimi meeshii ay joogtay aayadii amaba gabadhii aabihi qabay waxaana uu dhafoorka kaga dhuftay qorigii halkiina waa ku nafbaxday aayadii waxayna qadiyadii amaba kiiska Jordan u hadal lahayn ballaaran ku dhex abuuray dalkaas Mareykanka oo uu ka soo jeedo murankaas oo ahaa in kiiskan loola dhaqmo ka yar ee Jordan ah ee da'diisu tahay 12 jirka sidii qof qaangaar ah loo dilo amaba xabsi daayin lagu xukumo balse waxa arrinkaas soo farageliyay hay'adaha isku sheega xuquuqul insaanka ee dalkaas Mareykanka waxaana kiiskii wiilka yar ee dilaaga loola dhaqmay si caruurnimo ah amaba kiis caruurnimo ah oo jeelka ka baxay dilaaga yar sanadku markuu ahaa 2019 dilaageena yar ee labaad ee muuqaalkeenan maantana waxa lagu magacaabaa Sean Richard Silleris badana caruurtan dilaayada ah ee maanta kaga hadlaynana muuqaalkeenan maanta waxay u qaybsamaan kuwa laga sii daayay xabsiga ama ilaa hadda ku jira laakiin Sean Richard waa ka gadisan yahay oo la daldalay dambi dilka uu galay waxa ahaa sida tan dhamaadkii 8-maadkii waxa uu dhex faaftay dalkaas Mareykanka caabuditaanka shayaadiinta taas oo ay diin walba dagaal kula jirtay haday noqoto Kiristaanka iyo Islaamka iyo diimaha kale ee dalkaas ka jiraba intaas kadib waxa uu nin oran qarimeynay wiil waxa uu ninka yar lagu magacaabo Sean Richard oo da'diisu ka hooseysay 17 sano ku dhaqaaqay fal dil ah oo aad u qaab darna waxaana uu maalmaha kamid ah la soo baxay guriga uu yaalay oo lahaa ninka qabay hooyadii amaba adeerkii waxaana uu ku dhuftay uu horeyntiiba adeerkii waxaana uu mar labaad ku xogsiiyay hooyadii oo aan meesha idna ka fogeyn waana uu dilay labadii qofba isla markiibana waxa uu guda galay nadiifinta iyo habeynta meydadkii si aan loo dareemin balse maalmo kadib waa la qabtay ninkii lagu magacaabi jiray Sean Richard oo la xukumay waxaana markii la weydiiyay sababta ku kaliftay uu jawaabay in caabuditaanka shayaadiintu ugu wanaagsan dilkaas foosha xun oo uu qaatay sayminka diinta Kiristaanka laakiin se waxaas oo dhan looma joojin waxaana lagu xukumay daldalaad waxaana noqday wiilkii ugu horeeyay ama ninkii ugu horeeyay ee lagu daldalo dalkaas Mareykanka dilaageena saddexaad ee muuqaalkeenan maanta waxa lagu magacaabaa Craig Bryce waxay dilaagan yarna da'diisu ay ahayd 13 jeer markii uu dilkiisii ugu horeeyay geystay taasoo uu geystay falkaas dilka ah oo ahaa Craig mid uu mindi si fool xun la dhacay oo uu dhowr jeer u galiyay gabadh ay da'deedu ahayd 27 jeer markaas oo ay sanadka 1987 ama 87 mana uu soo joojiyay wiilkii lagu magacaabi jiray Craig ee 2 sano oo kadib waxa uu Craig uu midi mar labaad u dooxay amaba uu galiyay hooyo inanteedii oo jaar la ahaa guriga Craig uu deganaa amaba wiilkan yar uu deganaa waxaana la sheegay inuu midida ama dooxitaankaas uu ahaa mid aad u daran heerka ay gaadhayna falkaas uu geystay amaba dilkaas foosha xun uu geystay wiilka yar waxa lagu tilmaamay in markii hooyadan iyo inanteedii uu ku dilay midida ay daabka amaba meesha dambe ee la qabsado uu jabay midida intaas kadib markii uu boolisku qabtayna wiilka yar waxa uu ahaa mid iska caadi ah aan wax warwar ah ka muuqan xitaa markii la weydiiyay qaabka uu geystay dilka hooyadii iyo inanteedii dilay waxa uu ahaa mid lidaya amaba koobi gareynaya amaba u dhahaya hadaladii ugu dambeeyay ay lahaayeen hooyo iyo inanteedii amaba dadkii uu dilay hadaladoodii ugu dambeeyay ay lahaayeen markii ay sii dhimanayeen dib waxa uu ahaa mid ku jeesjeesay dadkii uu dilka u geystay waxaana uu lahaa intii wareysigu soo socday kan yari waxaan sameyn doonaa taariikh markaan dibadda u baxo ee aan jeelka dhamaysto waxaana uu ka eegay jeelka lagu xukumay wiilkan yar sanadkii hore aan soo dhaafnay ee 2020 ama 2020
dilaagiina afraad ee ugu dambeeya waxa lagu magacaabaa Amarjit Sada waxaana uu wiilkan yar noqday dilaagii ugu yar ee soo maray dalkaas Hindiya waxaana uu dilaagan yar bilaabay sanadku markuu ahaa 2007 dilkiisii ugu horeeyay xilligaas oo ay da'diisu ahayd 8 sano oo qura waxaana uu faldambiyeedkaas u galay ahayd inuu qurgooyay ama uu nafta dhaafiyay 3 caruur ah ay walaashi ku jirtay kuwaas oo aanay da'doodu gaarsiisnaynba 1 sano waxaana ay da'doodu ahayd sida tan walaashi oo ahayd 8 bilood ama 8 bilood jirtay naadeertii oo 6 bilood jirtay iyo wiil yar oo kale oo isna ay da'diisu ahayd 6 bilood waxaana uu ku dilay 3 isku qaab oo ahayd sida tan inta uu dhagax soo qaato ayaa uu dusha kaga keeni jiray war wuxuu arxan darana sidaasna nafta ay ku way jireen caruurtaas yaryar taas kadib waxa qabtay wiilkan yar oo dilaagan yar askartii waxaana la yaab lahaa intii baaritaanku socday kamaba faaruqin dhool cadeynta wiilkiisa haddii se la baarayna badqabka caafimaadka maskaxdiisana waxaaba laga helay xanuuno khatar badan ku hayay dadka ka agdhawaa agagaarka wiilkan yar waxaana digtooradu ku sheegeen xanuunka dilaaga yar in uu ku farxi jirayba oo ay naftiisu ku degi jirtay qurgoynta amaba naf dhaafida amaba dilida dadka naftiisu almuhim Amarjit Sada waxa lagu xiray jeelka muddo kooban oo aan badnayn ugu dambeyntiina waa laga sii daayay xabsiga ugu dambeyntii fariintan ku soo gabagabeynayna muuqaalkeenan maanta ayaa waxay tahay fadlan ogsoonow waalid in markasta oo tarbiyadda caruurta ay wanaagsan tahay inuu soo bixi doono jiil amaba bulsho aad u wanaagsan taas oo anfici doonta diinta iyo dalkaba muuqaalkeenan maanta taasi ku eegyahay fadlan dad nagu cusub tahay soo bir kanaalka oo subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada oo share dheh intaan ku kulmi doonana muuqaalka xiga waxaad ku dhaafi doonaa sidaas iyo nabadgelyo